aabe inta aroor hore oo uu qabow darana jiro gaari ku soo qaatay ilmo yar oo uu dhalay si uu u geeyo iskuul xanaano ah sidii uu gaariga u kaxaynayay garaash madaxa u geliyey kadibna iska shaqo tegey maxaa dhacay kadib maxamuud mascade oo barnaamijka alaabay gala qaybgala ah ayaa wax badan ka og sheekada waa kan maxamuud sheekadani waa sheeko qosol leh caashoy dhinac markaad ka fiirisana waa sheeko naxtin leh waa midda hore ee caashoy aabe ayaa maalin maalmaha ka mida hooyadii reerku waxa ay odagii ku tiri wardam intaad shaqada u sii socoto aniga xilli horaa laygu yidhi shaqada soo gale waa inaad wiilkan yar ee sanadka jira aad meeshii aan gey jirnay carruurta lagu xanaanaya xanaanada carruurta aad adigu intaadan shaqada tegin wiilka sii geyso wiilkii buu gaariga ku soo ritay hayihii horaarsan buu yidhi waa soo baxay wuxuu soo xiimaba maruu meel dhexe marayo ayaa madaxiisa alla ka saaray inuu cunug gaariga u saaran yahay malaha howl badan baa hor taallo oo maalintaas shaqooyin badan baa laga sugayey haa waa isi sii daayay caasho siduu u sii xiimaba waxuu gaariga ku soo kala wareejiyey baarkinkii uu dhigan jiray markuu shaqada gelayo gadaalba ma fiirine horuu shaqadii u galay yaabka adduunku waxau yahay caashaay siduu meeshii ugu jiray ninkani waxbaba kuma soo dhicin inuu cunug saaka soo qaaday gaari ku soo xirxiray kursi gudaha ka soo bixiyey waxaasoo dhan madaxiisa kumaanay soo dhicin iska gal shaqadiisii oo kombiyuutar ku mashquulsanaa marba cid taleefon kula hadal waxay sheekadu sida ahaataba mar dambe oo saacaddu 4tii galabnimo ay marayso oo xilligii shaqada laga rawaxayay lagu dhow yahay hadda waa 8 saac malaha ku dhawaad baa ka soo wareegay 8 saacadood buu ku jira waa subaxdii 6 camal buu shaqadii soo galay marka taleefon baa u soo dhacay waa xaaskii waa dafay taleefonkii qalbigii xageed ku baraysa see tahay laysbariidi maalintaadii ka waran aad iyo aad hadalkii xigay tiri wiilkii saaki markaad dhey keerka geysay waa xanaanadii carruurta iiga waran wiilkii maxaa lagu yidhi iyo sidii u ahaa armuu kaa ooyey iyo sheekooyinkii hooyanimo ayay la soo baxday saaxiibkaa wish baa ku yeeray meel kastaa allaarmi kaga qayliyey wuu ishayn kari waayey haweenaydii wuxuu ku dhaho garan waa taleefonkii iyadoo ku hadlaysuu cararay baabuurkii buu isku sii daayay walaa wuxuu ugu tegey gabankii yaraa oo meeshii weli saaran oo qaboobay hadda xilligaana weedarku aad iyo aad ayay cimiladu u xumayd 15 digrii waa Fahrenheit-ka nooca Maraykanka wax lagu xisaabiyo weeye waa qabowga waa heerkay wax ku barafoobaan waliba ku dhagaxoobaan waliba de fridgerka qaybta kore maaragtay frinjeerka qaybtiisa kore oo kale adigoo lagu dhex geliyay weeyaan qabowga banaanka jira aan midna ku raaciye wagan Maraykanka iyo Minnesota oo meel aad ku qabow ku jirta oo hadda xilligan aan wada hadlayno waa -26 bay ka hooseysaa heerka caadiga ah markaan imid Maraykanka caashay oo gobolka aan ku soo degay meelahan fiiriyay xilli Ramadaan soo dhawaaba markaas waxaan laygula kaftamay meeshana dadka baraf baa u yaala oo korkii qaboobi dadkii qaboob ay ugu baaba'ayaan afrikana barafka waa la soo gataa si biyaha loogu darsado macbudo sheeko yar berdhaweyd waxaan ku soo xasuustay isla kuleelkaas berdhaweyd maalin aad baraf looga qaylinayay ayaa waxaan arkay baraf inta lasoo xaaray ma xasuusataa xaafadda via roma qashin aad u weyn oo ooli jiray horta ma xasuusataa aad iyo aad sidiisii oo kale inta lasoo ururiyo wuxuu noqday buuro iyo marka baabuurta la dhisay baabuurta xaafadaha laga dhisayo guri ee iska caradii iska rogayaashu ay keeni jireen kale markaasaa ka tarbiil intuu qaado oo maanta iska rogayaala lagu guraa markaasaa waxaa yidhi baadinimaan lahayn baagtaalla annagana dhib uu nagu hayaa dadka kuleelaha joogayaa u rara aad iyo aad caasho sheekadii aan ku noqonay dadku kolley dabcan meeshay ku dambaysay sugayaane aad iyo aad aabbihii isagoo walwalsan buu gaarigii ku soo orday gaarigii markuu yimid inankii weli meeshii ku dhex jira wiilkii yaraa oo dee qabowgii anigu markii aan sheekada maqlay intaanan qaybtaa gaarin cashay waxaan u qaatay oo qalbigayga yimid markii ciwaanka uu ahaa yacni wiil 8 jirahoo gaari lagaga tegay xilli qabow ah dee inuu dhintaanba sugayay mogta laakiin markuu aabbihii meeshii ugu yimid cunugii weli wuu noolaa nafi way ku jirtay laakiin aad buu u dhibanaa cunugii degdeg buu waxa ugu wacay emergencyga qolada gargaarka degdega caafimaadka cunugii cisbitaal baa la geeyey waa la daaweeyey laakiin nasiib wanaag dhakhaatiirtii waxay yidhaahdeen wax dhibaato ah oo qabo ma lahan dalkan qabowgu markuu si zaa'ida kugu dhaco waxaa laga yaabaa xubnaha jirkaaga xubno ka mid ah in intuu dhiiggii ka istaago deetana mararka qaar ee dhacdaba in la gooyo inkastoon maxamuudow aanan weli arag haddana waxaan maqlay xataa dhegta mararka qaar inay haddaad taas u taaban maagto inay jabayso xataa weliba marka qabowgu uu zaa'id u bato dhiiggii baa istaagaya xididadii dhiigga wada iyo waxyaabaha joogsanaya markay joogsadaan dee fartii waxay la noqonaysaa dee geed meel ka baxay oo kale haddii sidaa loo kala jabiyo way kala jabaysaa marka nasiib wanaag waxay yidhaahdeen wax ilaa iyo hadda cunuga dhaawaca oo jirkiisa soo gaaray uu qabowgii uu u geystay
ma lahanin sidaasuu ku badbaaday arrintanna booliiskii markii la weydiiyey waxa ay ninkan ka yeelayaan sheekadan waxay ka dhacday gobolka new york waxay yidhahdeen arrintan ilaa iyo hadda booliisku wax wara kama soo saarin wixii aan ka yeelayno dib baan ka soo sheegi doonaa laakiin waxay isla qireen oo booliisku ay sheegeen inuu odagu iloobay oo yacni waddankan waad og tahay dadka shaqo fara badan baa ku furan maskaxdooda aad bay u shaqaynaysaa mararka qaar haddii magacaaga lagu weydiiyo waxaa laga yaaba inaad tidhaahdo magacaygii wuxuu ahaa ood cabaar ka fakirtid marka sidaabaa ku dhacday wiilka yarka laakiin nasiib wanaag hadda wuu bad qaba marka intan uu aabihii carcararayo oo teleefonkii hooyada uu ku soo xasuustay in ilmihii uu saakay 8 saac ka hor ay ugu wardambaysay inta hooyada sheekada ma la socotay mise markii arrimaha uu xalliyey kadib uu yidhi sidaasaa igu dhacda dee markii uu teleefonka islaantii ku dhigay dee dabcan meeshiibay ka warwashay oo dee halkaabay ka soo oroday cisbitaalkiiba markii uu ambalaasta wacayay oo ambalaasta la hadlay ayuu iyadiina teleefonkeeda kii gacantay haysa ay ku soo celisay markaasuu u sheegay sida wax u dhaceen dabcan waad dareemi karaysaa hooyo xaalku siduu yahay loo sheegay laakiin dee haddii dhib soomaalida waxay tirahdaa dhib hadduu yimaado dhabaqa meel beeshay haddii marka arrintii ay dhacday xaggee la aadaa xal aan ahayn in cunugii la badbaadiyo markaa ma aanu jirin marka dabcan hadda hooyadu waxay ka walwalaysaa saygeeda wixii ku dhici lahaa ma la xiri doonaa isaga ma laga yaabaa in reerka cunuga laga qaato oo la yidhaahdo khayrulmas-uul baatiin waxyaabahaasoo dhan baa ay hadda ka warwarayaan qoyskuiyo kama warwarayaan cunuga maxaa meesha looga tegay malaha maxamedow hadday hooyo fiican tahay waxay ku difaaci doontaa inuu aabbo wanaagsan aha laakiin subaxaasi wax ka khaldanaayeen haddii kale ugu giijin doontaa malaha waxaan rajaynayaa maalintaa markay kala tegaya inaanay cara ku kala tegin